wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Injineer Ciise Axmed Yuusuf Xawar ayaa waxa uu markii horeysay faahfaahin ka bixiyay booqasho rasmi ah oo dalka ku yimi xogayaha difaaca dalka Ingiriiska Gavin Williamson. wasiirka difaaca Soomaaliland waxa uu sheegay in dalalka Soomaaliland iyo Ingiriiska uu ka dhaxeeyo xiriir soo jireen ah, booqashadana ay ka dhigan tahay sidii kor loogu qaadi lahaa loona kobcin lahaa iskaashiga labada dhinac. wasiir Ciise Xawar waxa uu xusay in Soomaaliland ay ku taalo goob istiraatiiji ah oo muhiimad weyn u leh ammaanka gobolka Geeska Afrika. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland waxa uu sheegay inay dhigiisa ka wada hadleen arrimo door ah oo ay ka mid yihiin qodobadan. wadkaan ku qaabilay waxay ahayd booqasho runtii khaas u ah Soomaaliland una ku soo tacabiray inuu yimaado Soomaaliland soo ka soo duulay dalkan waddanka South Sudan halkana direct u yimi qorshahaasi waxay ama booqashada wasiirku waxay muujinaysaa intimaaha ama culayska ama danaynta Soomaaliland ay u hayaan dawladda Ingiriisku. Soomaaliland wada ogtihiin oo dal meel istiraatiiji ah oo Horn of Africa oo ayaamaha kan bari dambe marxaladiisa siyaasadeed isbedelaysay baynu ku naalaa. ahmiyadeena iyo istiraatiijiyada dhulka Ilaahay nagu abuurayna ma wax maanta bilowday wax markii hore xitaa isku jiray Soomaaliya adduunku wada danaynay oo waxay ahayd meel focus international community bariye xitaa dagaalkii qababa ee Eastiga iyo Westiga saysteen meel ku hirdamaan bay hadda inuu qarannahay Soomaaliland maanta inaga noo hadhayno Soomaaliland u joogno istiraatiijiyadii iyo ahmiyadii bay wali leedahay. waxa xaqiiqa safarka xogayaha difaaca wuxuu ka turjumayay arrimo badan ay number 2 u ahayd si xoojinta xiriirka labada dal UK iyo Somaliland arrimaha amniga ee gobolkan oo bariyo dambeeyay runtii isbedelada la socotaan ka dhacayeen joogteynta iyo in la sii xoojiyo علاقاتك لبدنا دل خاصة أنه خاصة صارت هان وقت بدل ما نوضع قاعدني حيلا بدن ورنتي دنيا بدن ثابنا يعني معنا وحسكوا ديني الحمد لله وحالي أنت وحالي أنقذ هذا الأردن مواقفة في عانية صفقات في عبنا نقول ماذا إن شاء الله نحن رجينا إن الإنجليز كوبا taageero badan buu noo fidin jiray haday xagga humanitarian sector ka noqoto iyo haday xagga amniga noqotoba oo waddankeena muddo ilaa intii aanu qarnimadeena la soo noqonay gacanta kula jiray oo waxyaalo badan dhul badan bay naga saacideeyeen. haddana waxaan insha Allah rajaynaynaa intii la sii laabo waliba ay ka sii ballaadhato ahmed weyn bay noolaaday shalayta boqoshadii wasiirkaasi yani waxaan maranayaa wasiirkii ugu mugweynaa ee abadi naga soo ofisad inaga yimaada dalkan Ingiriiska buu ahaa waji cusub iyo dadal cusub iyo in wixii jiray cilaaqaadkeeni jiray Maxamed Jaamac Amal warbaahinta SBC Hargeysa.